gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha baarlamaanka garbihiisa ganacsatada saxaafadda aqoon-yahanada intaba waa idin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa mud xaafadda ugu cadaalad badan tahay inta meesha fadhido gabdhooda iyo wiilashooda isla socdaan. gudoomiye gabeer wuxuu gabdhaha uga soo tagay asagaa sheegi doona haddii ilaah yiraahdo. guddigan waa inay la xisaabtamaan. aniga waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho oon badnayn export import inta aan dhihin, laakiin waxaan rabaa laba qodob oo yaryar inaan uga faa'iidaysto munaasabaddan. mid ah marka u horeyso coronavirus markii u horeysay in laga hadlo adduunka ay bilaabeen oo aad December ay ahayd, laakiin markii adduunka wake up call-ka ay heleen oo dowladaha waaweyn subax walba oo prime ministeradooda wasiiradooda ay subax walba irdaha ka hadlayeen March ay ahayd. waa xasuustaa aniga Toronto lockdown igula dhacay. every morning prime ministerka Canada Trudeau subaxdii 5 saac ilaa 6 saac dadku la hadli jiray, qofuu lacag siiyo qofuu wax siiyo. dowladda Soomaaliya hadda say u aragtaa inay maantana warsato arrintaas iyadoo intaas waqti ah la soo joogay. midda labaad wasiirkeena ganacsiga qeyr Allah siiyo wuxuu yiri waxaan dhaafnay canshuur dhaafaan sameynay. Soomaalidu waxay tiraahdaa maxay nuugtaa maxay suku nuugtaa. horta dowladda maxay noo dhaaftaa oo canshuur ah maxay haysataa ayada. marka aan saas dhahay ganacsiga waxay isla dhigi doonaan ganacsi canshuur ay rabtaa inay soo rogto. canshuur aniga aan soo rogayo ma aan dowladda canshuur ma qaadato, annagana lacag nooma harto. marka wax ay noo cafisaba ma hayso. laakiin haddii waxaa moodaa inaan waqtiga primitive ka ahay inaan joogno annaga oo aanan la imaanin dowladda timaado halay qaadan jirtay fiirisaa inay wax ka bedasho maxaa jiro maxaa socdo si adduunka looga dhaqmaa ma jirto. annaga ganacsatada wax dhoofisay ku soo dejisa markaan nahay ku wax soo dejiyaan tankii waxa ku baxo $70 plus ah ku baxdo. $70 plus kaasna dowladda less than $20 ah canshuur aado. waa wax laga xumaado inay intaas aado jeebab islaameed. haddii laakiin dowladda ay dhireysay loo dhaqmaa maxaa la suubiyaa lacagtan yey aadiyay gashay lacagta inta soo ceshato ay waxay xaq u leedahay iyada account-keeda gashato oo markay masiibo saan oo kala ay dhacdo ay noo dhaafi lahayd because waxay noo dhaaftay haysataa. laakiin lacagtana laga qaado dad islaameed iyo kuwa adduunka ku nool iyo kuwa aanan aqoonin ay toos u aadaan. mar walba markii laga hadlana dadka ma xanuujisa xataa ma aqaan aniga marka ilaah markuu keeni doono ma ogi dowlad indha qabto aragto fahamto xaqeeda raadsato anagana xaqeena na siiso waa suugaynaa. midda labaad waa wasiirka maaliyadda wasiir Qalooco dhoofin iyo soo dejin canshuura laga wada qaadaa. aaway policy-ga jiray aaway dadka wax dhoofiyo aniga sisintaan aad u dhoofiyaa. sisinta dowladaha India markay dhoofinayaan dadka waxa dhoofiyo canshuur lagama qaado markay sisinta dhoofinayso free ay ku baxaysaa. midda labaad waxaa la siiyaa $100 ah tankii la siiyaa oo dhiirigelin ah. waxba ha ka fakirin faa'iido inaa heshaan $100 qaata. dadkaas waa dadka aan la tartamayna annagana 100 aan qaadanay iska dhaaf sisinteena markaan habeenkii rarno 8 saac gudoomiye gabar aan soo kacshaa baabuurkayga inta soo baxo ma aadi kara dekada ilaa oo asaga inta yimaado generaal hebelo marka ma naqaan waxa u noolna oo u shaqeynayna. arrimahaas haddii aan wax laga qabanin wadanka horumar ma gaaraayo, dhaqaalihiisana ma kacaayo. dhaqaalaha wadanka waxa cuuriyaamiyeen ma ahan waa dowladda waaye because dowladda ma differentiate gareyn karto ma kala bixin karto waxa la soo dejinayo iyo waxa la bixinayo say u kala bixin lahayd. lacagteeda meeshay ka raadsaneed iyo meeshay ka doonan lahayd ma taqaano. ilaahay fas'alu ahlu dhikri in kuntum la ta'lamuun. haddii idinka waxaan eedan ogeynina warsada dadka ayaga sheegay taas intaas uga baxay. export import yaan rabaa markii aan u soo noqdo ayadan wax yar inaan ka dhufo. export import wax kale ma ahan dadka export importiga sameeyaan ma ahan tujaar sida Bill Gates ah. waa dad masaakiin ah xoogaa yar lacag lagu aaminay haystaan ka bacdi maxay noqdeen safiirre ay noqdeen. yey safiir u yihiin safiir waxay u yihiin ganacsatadii ayada waxay ganacsatadii adduunka jirtay oo aamintay oo xoolahooda u soo dhiibtay. dhaqaale bixiyaal sida bangiyada iyo institutionada kale oo financial ah oo ama wadanka ama dibadda ah oo dhaqaalahooda ayadana qaaday. intaas markay isku keenaan waxay sameeyeen warshado
ay wax ku soo saaraan ama alaab ay keenaan alaabta ay keenaan waxaa si formal ah ay si aan informal ahaynba uga faa'iideysto macnaa si toos ah si aan toos ahaynba dawladda waa mara toosay canshuur uga qaadaa waa faa'iidadeeda tooska ah midda labaad waxay uga faa'iideystaa shaqaale badan abuurmay oo mushaar baxsho aan mushaar la siiyaa deegaanaa joogo beenlow waxaa nin dheer in intuu marqaad gashtaa geel ka fadhiya meeshaan hadda wuu og yahay inta qof aan hayno 8 bilood ma shaqayn annaga haddana mushaar warshadaydu joogay mushaarka waa la baxshaa waa la qaataa waa iskor fadhinaa aniga meeqa sana aan survive gareyn karaa aan dhiman karaa dawladda waxay kari weysin xataa in idaacadaha soo fariisato ay dhahdo war bangiyadu dadka deemanka aan ku leedihiin ilaa 6 bilood waxba yaa la warsanin hala suugo ijaarada yaan loo qabsanin oo yaan la tuuriyeynin mushaarkii la bixinay at least xataa waxba waa ogahay lacag badan ma laga sugaaya laakiin maxaa qabtaa qalbiga u roontaaliin in maanta la yiraaho intee joogteen already waa dhimanay annaga markaan dhimanno adinkana waa nala dhimanaysiin lee waa la daruura badda la wada galayaa marka waxaan codsanayaa annaga safiiraan nahay waa ceebeysanahay Dubai hadda dadka ugu taajirsanay saraha iska soo wada tuureen haddii idaacadaha aad dhageysateen waa arkaysiin markuu circle socday markuu istaago uu dhaxda ku istaago qofta suicide isku sameynaysaa annaga laakiin alxamdulillah dad iimaan lahaanahay waa sii jiitamayna annaga markaan soo weynana kuwa kala imaanayo oo shaqada sii wadaayo laakiin dawladda dhinaceeda dhaxanaa naga hayso markii la hadlana waxay leeyihiin ganacsatada canshuur ma bixiso maxaa canshuur iga qaadaa ani ila fariiso baahideyda i warso xoolaha dayacan raadso adiga qaado bari marka dhib yimaado disaster ay timaado nus ii reeb nusna qaada adiga waa mahadsantihiin